بسم الله رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back again our students all around the world. My name is Abshir Muhammad. Today inshallah ta'ala we talk about rules for sexes. Rules for sexes. قاعدين la xiriira guusha haddii ay rabto inaad guulaysato qodobadani inta badan halkan lagu soo koobay ku dadaal kaliya maahan marka qodobadani halkan ku qoran oo kaliya kaagama xirna guusha balse waa qaar ka mid ah ama kuwa ugu muhiimsan ee laga rabo qof walba oo doonaya inuu horumar sameeyo ama uu guulaysto noocii doona ha noqdee horumarkaasi ama guushaasi qofba waxay ku xiran tahay waxa asiga uu tiigsanayo ama uu rabo ay ku xiran tahay marka haddii aad rabto marka inaad guulaysato oo hadafkaaga aad gaarto waxaa lagu leeyahay qodobadani ku dadaal inaad samayso mar walba aad joogtayso qodobadani waxaa ka mid ah marka ugu horeeya lagu leeyahay number 1 waxaa lagu leeyahay don't waste time waqtigaaga ha iska luminin waqtigaaga bilaash iskaga luminin oo ka faa'iideyso waqtigaaga sababtoo ah waqtiga waa shayga ugu muhiimsan oo aan haysano weeyaan maantay waxa la yiraahdaa time is money waqtigu waa lacag marka waqtigaaga maadaama uu yahay lacag uu yahay marka lacagtaasi iska khasaarinin marka ka faa'iideyso lacagtaasi si fiican u maamul oo macnaheedu ay tahay waqtigaaga si fiican u maamulo qodobka labaad waxaa lagu leeyahay maintain continuity joogtay waxyaabo aad qabanayso howlaha aad qabanayso haddii ay tahay waxbarasho haddii ay tahay shaqo haddii ay tahay nooci doonto ha noqoto dhammaan howlaha aad qabanayso waa inay ahaadaan kuwo la joogteeyo oo aan beri la bilaabin oo la iskaga tagin beri dambe shaqo kale ama howl kale ama koorso kale aadan bilaabin oo iskaga tagin waxa aad qabanayso waa inay ahaadaan wax la joogteynayo oo meel gaaraya oo laga salgaaro ha noqdaan qodobka saddexaad waxaa lagu leeyahay practice makes us perfect practice-ku ama ku celcelintu waxay ka dhigtaa ama naga dhigtaa perfect qof sax ah ayay naga dhigtaa waxyaabaha marka aad practice aad ku samayso aad ku celceliso in badan oo aad fiiriso oo aad akhriso oo aad qabato marka xigta waxaad ka dhaxli dadaalkaasi ama ku celcelintaasi faraha badan waxaad ka dhaxli doontaa perfect inaad ku noqoto shaygaasi inaad perfect aad ku noqoto ayaad ka dhaxli qodobka faraha waxaa lagu leeyahay build self confidence dhiso ayaa lagu leeyahay wax ku dhiirigeliya adiga dhiso oo samayso waxay doonaan ha noqdaan marka macno ma lahan ama laguma dhahayo shaygaas ee ku dhiirigeliya laguma dhahayo adiga ayaa isgaranaya marka wax ku dhiirigeliya oo hawshaasi aad qabanayso shaqadaasi aad ku jirto dhammaan waxyaabahaasi marka kaa saacida waa inaad marka aad leedahay qodobka shanaad waxaa lagu leeyahay marka keep moving forward mar walba hor u soco ayaa lagu leeyahay hore u soco mar walba aqoontaadii kordhiso cilmigaagii kordhiso shaqadaadii horumari dhammaan waxyaabahaasi marka waxay kaa saacidayaan inaad marka horumar aad gaarto qodobka lixaad waxaa lagu leeyahay marka never stop learning weligaa ha joojinin waxbarashadu ha isdhihin marka dugsi sare ayaan dhamaystay jaamacad ayaan dhamaystay PhD ayaan soo qaatay ama master ayaan soo qaatay waxyaabahaasi oo dhan marka ha ku mashquulin oo marka yay ka hor istaagin waxbarashada inaad ka fadhiisato oo aad joojiso qodobka xiga waxaa lagu leeyahay oo toddobaad adapt change quickly waxaa lagu leeyahay adapt la qabso change quickly isbedelada si dhaqso ah kula qabso ayaa lagu leeyahay isbedel walba oo kugu yimaada kugu soo kordha si dhaqso ah isbedelkaasi marka la qabso oo yaysan ka dhigin marka fursad yaysan ka dhiganin oo marka yaysan ku nijibinin marka fursadaasi marka ama challenge-gaasi ama isbedelkaasi kugu soo kordha waa la ogyahay bani aadam ayaanu nahay adduunka ayaanu joognaa qof aan marka caqabad aan la kulmaynin ma jiro marka balse waxaa fiican qofka marka uu la kulmo caqabada inuu marka xal u helo ayaa fiican midaasi weeyaan midda laga hadlayo marka isbedelka qodobka xiga halkan inoo yaala waxay tahay be happy in all situations ahaw qof faraxsan marka dhammaan xaaladaha ama maraaxiisha aad ku sugan tahay oo idil ahaw qof faraxsan marka qodobka sagaalaad waxaa lagu leeyahay talk to more people talk
to more people la hadal dad badan la hadal macnaheedu waxay tahay iska hadal oo keliya maahane waxaa loola jeedaa inaad dadka waxgaradka indhergaradka aqoonyahanada dadkaasi ka waaweyn ka aqoon badan ka cilmi sareeya ka experience badan dadkaasi inaad la hadasho weeyaan la sheekaysato si aad u hesho marka information oo dheeraada aad u hesho marka sidoo kale waxaa lagu leeyahay honesty is the key to sex honesty daacadnimadu is the key to sex waa furaha aad ku guuleysanayso weeyaan marka daacadnimadu haddii aad tahay qof daacada waxa weeyaan waa furihii guusha ayaad haysataa ayaa lagu leeyahay marka waxaa kaloo ka mid ah attitude is everything attitude waa qaab fikirka ayaa waxaa lagu magacaabaa attitude is everything qaab fikirkaagu marka wuxuu yahay wax walba waa asiga qaabka adigu aad u fikirto ayaa waxa ay tahay wax adigu aad tahay ama aad noqon doonto ayaa ka soo baxa marka fikirkaaga oo wanaaji si aad u noqoto qof wanaagsan waxyaabo aad ku fikirayso ha noqdaan waxyaabo wanaagsan waxyaabo horumarkeena waxyaabo adiga wax ku tara sidoo kale waxyaabo qoyskaaga wax u tara waxyaabo bulshadaada wax u tara waa inay noqdaan marka maadaama ay ku xiran tahay wax adigu aad noqon doonto ama aad tahayba qaab fikirkaaga marka aan wanaajino qof waliba qaab fikirkiisa aan wanaajino insha Allah taala qodobka xiga waxa lagu leeyahay focus on your strength waxa diiradda saartaa mar walba waxyaabaha adigu aad ku fiican tahay oo aad jeceshahay oo aad ka hesho oo aadan ka daalin marka aad qabanayso ku dadaalaya lagu leeyahay qodobka xiga patience and persistence waxa lagu leeyahay haddii howl la qabanayo nooc doonta noqoto shaqo ha noqoto ama waxbarasho noqoto ama wixii la mid ah haddii howl la qabanayo qofka waxa uu u baahan yahay inuu marka shaqadaasi uu ku samro oo u samro kadibna uu joogteeyo persistence uu sameeyo joogteyn uu sameeyo marka qodobka 14 waxa lagu leeyahay believe in yourself aamin nafsadaada aamin adiga is aamin horta adiga yaa tahay horta adiga qofka tahay isbaro qodobka ugu dambeeya waxa lagu leeyahay marka never give up weliga ha isdhiibin weliga ha rajo dhiganin never give up intaan oo qodob ayaa marka waxay ka saacidaan inaad guuleysato waa haddii adigu aad u qaadato sida saxda ah ee looga talagalay aad u qaadato aad u fahanto sida aan kugu sharxayo si ka fiican aad u fahanto xilligaas aad waxaad noqon marka qof guuleysta aad raacdo qaadooyinkani marka insha Allah taala qodobadan aan ku soo koobi doonaa maantay rules for success qodobadan aan ku soo koobi doonaa waxaan rajaynayaa marka inaad wax badan aad ka faa'iideen sidoo kalena waxaan idinka codsanaynaa inaad gaarsiisaan walaalihiina u baahan talooyinkan iyo talooyin la mid ahba marka waxaan idin leenahay soo dhawaada wassalaamu calaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh